Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelka daawanaysaan waa Saleem Media Official. Fadlan haddaad noogu cusub tahay subscribe share dheh asxaabtaada la wadaag. Mahadsanid. Waxaynu maanta ka hadli doonaa halgamaagii weynaa ee reer Masar. Allah u naxariistay naxariista Rabbi Allah siiyey Maxamed Mursi oo ah madaxweynihii shanaad ee dalka Masar. Magaciisa saddexan waa Maxamed Ciise Mursi. Waxa uuna ku dhashay magaalada Al-Adwa ee dalka Egypt taariikhdu markay ahayd 20 bisha Agoosto 1951. Maxamed Ciise Mursi waxa uu ahaa madaxweynihii shanaad ee dalka Egypt. Maxamed Mursi waxa uu ahaa mid ka mid ah madaxweynayaashii Islaamka ee markaasi jiray ugu firfircoonaa. Jagada waxa uu qabsaday 2013. Maxamed Mursi Allah u naxariistay wuxuu jagada xilka dalka Masar la wareegay Juun 2012. waxa uuna ku ekaa asigoo muddo hal sano ah khilaaf shacabkiisa ka dhex yimaada awgeed. waxa uuna xilka laga wareejiyey 3 Julaay 2013, taasoo hal sano iyo wax ku dhawaad u waayay. Maxamed Mursi Allah u naxariistay waxaa muujino badan ka keeneen shacabkiisa. Markaas ayuu ereyo badan oo maangal ah soo ictiraafay. ereyadiisii Maxamed Mursi haddii idin soo xasuusiyo waxaa ka mid ahaa: لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلكم كلاب أعدائكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. soo jeedisay khudbadii ugu dambeysay oo madaxtinimo oo ka jeedinayay kadib markuu dhahay laa taqtuluu bilaada usuudukum, hadilinina libaaxyada dalkiina si ay idin fataqtulukum kilaabu acdaa'ikum si ay idin cunin eeyada wadankiina. waxa uu ahaa madaxweynihii shanaad ee dalka Masar. Allah u naxariistay Maxamed Mursi waxa uu kasoo baxay jaamacadda Qaahira ee ku taala dalka Masar. Sidoo kale wuxuu professor weyn ka ahaa jaamacadda North Carolina, kaasoo ka ahaa professor muddo badan. kadib markii uu xilal badan meesha kasoo qabtay, wuxuu dalka Masar xilal badan usoo hayay. Maxamed Mursi waxa uu noqday madaxweynihii shanaad ee dalka Masar. waxa uuna noqday madaxweynihii ugu saameynta badnaa ee dalka Masar kadib khudbadii ugu dambeysay uu soo jeediyey. khudbadii Maxamed Mursi dhammaadkeeda waxaan ka fahnay inuu kusoo khatimay fastadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawwidu amrii ila Allah ina allaha basiirun bilcibaad, taasoo micnaheeda la jeedo arrinkan ilaahay. Maxamed Mursi waxa uu dhalay 5 wiilood oo 5 caruur kaasoo ah wiilal. Maxamed Mursi Allah u naxariistay waa mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu caansanaa ee Islaamka soo maray madaxweynenimada. waad ku mahadsantahay daawashadaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.